السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبدا بحيتري ما سوق لنا محاوي أقول كلفي فيديو كان وحكي صعدا أسأقول هلا يا وجوه الرجاء أيان الله أحمد أر حيالات كل رقم أيان الله أحمد أر وحلا جح الشهداء دلمر أول وقت كل جنات توعيت هذا واحد مرة سعينا حاس كيس عايشه وأنا وحلا جح الشهداء qofka bilaadanka mabdiisa uu ka hadli karaa oo uu dhihi karaa mabda'ayga ma gadanayo laakiin waxa nasiib daraa ilka case isagu timiisu ma xirmaan miya ilka case boqorka raabka ninka la leeyahay timiisu ma xirmaan miya shala markii uu dhahayayse aab cabdiyo aaba ma lahayn miya waa on alaf iyo caadadeeda kii uu maadana inay tiraahdo 10 kun buu ku heesaa kii diidana inay caydo marka waan isnaqaanaa dadka aynu isla dhalano mabda aad rabta aaminsano aydu inaad xaasaska bilaadanku ay qabaan lacaayo qadeeda kuma jirto kii idin la joogana waad amaantaan kii idin ka tagana waad caydaan ilaahu mu 99 sano uu ku jiro waxa aad leedihiin ama halgan ama kan waa geesi maalintu wax u cuntamo waayana idinka tagana waa xaraami waa tuug waa burcad marka anigu message-kayga wuxuu ku socdaa cid kale kuma socdo ninka leeyahay boqorka raabku ayaan la Axmed Aar walaalkiis yariiska ayaan le walaalkiis oo la dhaho magaciisa Qaasin Axmed Aar way ninka heesta garow ka dhacaysay soo xafaantay ma ilka casoo adadu boqorka raabka isku bixisay wallahi inaan ku aqoon billahi wa tallahi fiidiyoyaashaadii allahayd aaba cabdiyo on alaf iyo ummadda Soomaaliyeed ku lahayd yarku aaba ma laha miya ma garac ba ahaade is everywhere afa dalmar ku cayda kuma guma yaalo dalmar ma gaadid adiga iyo inta ma aragtay caynba-caynka ee say rabto wax walba u soo sheegta dalmar ma gaaraan haddaan ku sheegayaa I'm working right now waa shaqaynaya shaqan ku jira wearing a uniform ma faantay ninka ragga waxa ku fiican in xoogiisa Soomaaliyeed inuu shaqaysto laakiin meelaha qaarkood imaadeen oo caytamo ama ma aragtay dalmar marka aad ku leedahay kondhabka Ethiopia tahay ninka shalay aabi aan kaleem garanaynin baad ahayd ninka waxa shalay Cabdiwali Isbakti iyo cid walba ku dhahayay على قدره بريده كسو غلاي انا لف مبدا aaminsan tahay intii aaminsan xaq bay u aaminsan tahay laakiin ana laf kuma caay kara ilka casow ma gaadid dalmar hada ku tiraayaa Allah Axmed Aar aniga hal la yaacayo ilka dalmar hal la yaacayo niyo dalmar waa ka sharaf badan yahay Soomaali buu superstar u yahay DDS buu superstar u yahay afar kun haduu idin dhahayna maaragtay aad la timaadeena wali lacag raqiis oo la timaadeen $100,000 hadaa la timaadaan xataa idin meesay hadaa idin sheegaya adiga dalmar meel leedan dhigi karo oo wallahi studio-yada Minneapolis waa laga wada eriyo hadana ku sheegaya ilka casoo haday noo bilaabatay mabda DDS ma aragtaa maaha wax maalin la xidho maalin la siibo ma faante dalmar saaxib mabda uu rabo aaminsanaanaya cid uu rabo u heesaya mana gaadid maseerka markii inta iska dayso ha noqon baqashi fartaha la daaqday faras ka ismooday ona laf marka aan la hadlayo dhalinyarada ona laf ku nool Tuwan City ama magaaladan anybody can fuck with dalmar uu arkaya result hadda idin sheegaya ilmaadar waa inta istaqaan hadda idin sheegaya magaaladan waa ku wada noolnahay inta aan adduunka aan ku wada noolayna meelaha kala joogowna waxa rabtaan waa dhigi kartaan dalmar ma gaadhaan mabdi aad aaminsanaa dalmar wuxuu rabo aaminsan yahay dalmar haddii aad caayaysa ayaan la uu kaaga xishoonayo abtiinimadeeda wallahi oo billahi oo tallahi waa la wada joogaa magaaladan anybody saqajaanimo ama aflagaado isaga iyo marwadiisa ula imaada waxay tagaysaa personal hadda idin sheegaya waxa mabda la dhahalka dhiga abti iyo xishmada leedahay xishmeenaad barateen ilka casoo message-kayga waa arki doontaa nin kula hadlay Maxamed Jabuuti waaye DDS kuma baahna maalinba waxaad ku dhigantahay meel shalad madaxweyne Xasan Sheekh caayisay maalinba cayn baad xirataa waad ogeed hoolka markaan iskugu imaanayna baryada aad ku joogtayna Cabdiwali Isbakti aad u soo ordaysay DDS kuma baananiyo DDS waa dawlad dhaqaaqday Soomaaliya dhan ay hoos tagto midda kale aan u sheegay ayta ma taqaana yaan la iscaayin haddii la iscaayo magaalada la wada jooga intaas ay idin sheegaa shaqadeedaan ku noqonaya